السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين aad iyo aad baan idin salaamay meel walba joogtaan. waxaan leeyahay waqti waxaan wacnaado waxaan idinku salaamay salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddii aad ku cusub tahay channelkeena Human TV 24 waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saarto, like-tana noo raaciso, kulli wax dhiba kuma hayso. halkan waxaanu kaga hadli doonaa arrin yar oo u baahan in laga hadlo. arrintaasi oo ka hadlaysa ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan ciidamada liyu booliska, taas oo dadka inta badan ay siyaabo kala duwan ay fikradahooda uga qaateen. xukuumadda maanta joogtana aad iyo aad ay u dhaliileen. markaa balana fikradaydaana waa inaan halkan idinkala wadaago. fikradan aan idin wadaagayana dee waa horta mid aad u wanaagsan. horta ciidamadeenu hadday yihiin liyu boolis waa ciidamo halgamayaala. maxaa ahaydey dee lagumana dari karo xukuumaddan maanta joogta ninka u taliya ayuunbaa qaldan, laakiin iyagu waxay ku taagan yihiin waa wado saxan. markaa ciidamada liyu booliska mar walba waxaan leeyahay cadaaladda iyo wadaninimada iyo horumarinta dowladdiina waa inaad ka shaqaysaan, waana ka shaqeeyaan. tan kale la leeyahay ciidamada liyu booliska laayay dad bay ku laayeen Bombaas, maxay la buubuulinayaan? arrintan la buubuulinaya la leeyahay ciidamada liyu booliska laayay dad bay ku laayeen Bombaas, shacab bay gumaadeen. arrintaasi horta waa arrin jirta. dadkana la iskama nalayn. ciidan dalkiisii qoriga loogu dhibay oo la yidhi difaac. marka dadkii qoriga u sitay uu iyaga ammaankooga ilaalinayay, marka ay sameeyaan inay isagii ka hor yimaadaan oo ay xadgudub sameeyaan, dee waad garanaysaan waxa iska dhici kara. ciidamada liyu booliskana dee horta Soomaalidu Itoobiya sharci bay leedahay. sharcigaasina waxa weeye inuuna qofi askariga eegi karin, askariguna una ula tegi karin qalad. sida dadku haddaba arrintan laga hadlayo waxay u kala dhigeen ninbadee waxbuu kala qaatay taliyaha ciidanka booliska Maxamed Yare oo sheegay isaguna inuu hay'adda weliba la sii layn doono. taanu arrintaas halka taliyaha waxaan odhan lahaa Maxamed Yare generaal taliye ciidamada adiga u taliya. markaa dee waa inaad la sahirtaan dadka lagu maadayo. wax sharciga waafaqsan haddii lagu sharciga haddii ay ka tallaabsadaanna maxkamad baa taalla oo dee waxaa dastuur iyo kala dambeyn bay leeyihiin dadka iyo askarta diriska xidhan. markaa taliyuhu laba kelmadood ayaan kasoo qaadanaya hadalkiisii. wuxuu yidhi waa la sii layn doonaa, iyagana xabadda nagu soo riday. markaa horta waxaan leeyahay dadka shacabka Bombaas deganna horta kullii sababta loo laynayo waa sabab jirta, waana kullii dad taageersan Oromo dabada ku wata. markaa hadday Oromo raacsan yihiin oy kala ka raaceen Oromo way ku habboon yihiin in la laayo, laakiin hadday ka tirsan yihiin Soomaali waa qalad in la laayo. markaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inay khayr ku dhamaato. ciidamada liyu booliskana waxaan leeyahay mar waliba cadaaladda inaad ka shaqaysaan.